السلام عليكم daawadayaal limaan iyo labnaan waa shubaal media kan idinka soo gudbinaynaa taariikh ku saabsan jilaaga caanka ah ee Bollywoodka ee dhiga filimada Hindiga. Jilaagaas oo Soomaalidu ay u taqaan Sunny Deol ama uu ku caanbaxay magaca Sunny Deol, magaciisa saxdaana yahay Ajay Singh Deol. Ajay Singh Deol waxa uu ku dhashay isla gudaha dalkaasi Hindiya gobolka Punjab 19 Oktoobar 1956. Gobolka shay ah ee jila filimada Hindiga ah, actor ku caanbaxay jilida filimada aadka u kulul oo inta badan filimadaasi ay yihiin kuwa qub iyo qac ama dagaal joogto ah, kuna caanbaxay aflaantaas Soomaaliduna ay aad u xiiseyso filimadiisa, ayaa waxa uu kala dhalay laba iyaguna magac weyn ku leh Bollywood. Waana actor caan ah oo muddo dheer soo jilayay filimada, labadiisa waalidna aad looga yaqaan, xushmad badanna looga hayo gudaha dalka Hindiya. Ajay Singh Deol waxa uu ku dhashay gobolkan Punjab oo ah gobol aad u ballaaran oo ku yaala waqooyi galbeed ee dalka Hindiya. Gobolkan ku yaala waqooyi gobol aad u ballaaran waxaa dega qowmiyadda Singaha oo uu ka soo jeedo actor-kan caanka ah ama qoyskiisa oo idilba ay ka soo jeedaan qowmiyadda loo yaqaano Singh. Sida magaciisa ku cadba Ajay Singh Deol, aabihii waa Dharmender, hooyadiina waa Hema Malini. Haddaba Sunny Deol, gobolkan uu ka soo jeedo waa gobol qani ku ah beeraha iyo xoolaha, waana gobol aad u ballaaran, waxaana uu laf-dhabar u yahay dalagga ka soo baxa miraha dhammaan gudaha dalka Hindiya. Waana gobolka keliya ee beeraha ugu badan dalkaasi Hindiya, xoolaha ugu badan ee laga dhaqdo dalkaasi Hindiya ay ku nool yihiin. Waa gobol bilicdiisu aad u qurxoon tahay, dalxiisyaal fara badan oo ka kala yimaada dunida daafaheedana ay u soo dalxiis tagaan sanad waliba. Beeraha ku yaal iyo bilicda gobolka uu leeyahay, gobolka waa xarumo aad u qadiimiya oo qasriyo waaweyn oo dhisanaan boqolaal sannadood. Haddaba waxa uu u gudagalay Ajay Singh Deol oo ahaa jilaa filimada Bollywoodkana aad uga dhex muuqday sannadihii 90-meeyadii ilaa aynu ka soo gaarno 2000 iyo xoogaa. Gobolkan uu ka soo jeedo waa gobol taariikhi ah oo aad u taariikh fog oo soo jireena leh. Waxaad ku arkaysaan meelaha ay wax ku caabudaan si tabyada ah oo ah kuwa aad u qadiimiya oo qaarkood ayba ku dhow yihiin inay kumanaan sano dhisnaayeen, iyaga oo kaga duwan guud ahaan gobollada kale ee Hindiya dhismayaasha qadiimiga ah ee faraha badan ee gobolkan oo ah mid ay ku badan yihiin sidaanu idiin soo sheegnay dhismayaasha qadiimiga ah oo ay ka dhigteen meelaha muctabyada amaba dadkii soo xukumi jiray gobolladani ay deegaan ahaan u deganaayeen. Gobolka Punjab waxa uu kaloo caan ku yahay waxaa ka soo heesayaasha ugu badan ee gudaha Hindiya, kuwooda ugu magaca dheer ama ugu xiisaha badan dadku xiiseeyaan dhageysiga heesahooda ayaa ka soo jeeda gobolkan Punjab. Gobolkan oo aadka u ballaaran ayaa waxaa inta badan ka soo baxa ragga dalka xukuma oo uu ka mid ahaa ra'iisul wasaarihii hore Atal Bihari Vajpayee iyo ra'iisul wasaaraha haddeer dalkaasi xukuma Narendra Modi. Haddaba actor-kan caanka ah ee jila filimada dhalay, sidaanu hore idinku soo sheegnay, laba jilaa oo caan ah oo magac weyn ku lahaa
gudaha gaar ahaan dalka Hindiya idilba, waana aktarka Dharmendra ishada Hema Malini. Dharmendra oo superstar ka ahaa waayadii uu filimada jiri jiray ayaa marnaba aanu noqon aktar isagu uu yahay aktar superhero oo aadna looga jeclaa gudaha dalka Hindiya iyo gaar ahaan dhammaan daafaha caalamka daawashadiisa aflaanta. Hema Malini oo aan iyada waxba ka yareysan waxa ay ahayd aktarishadii ugu quruxda badneed ee Soomaaliya ilaa hadda. Lama hayo Hema Malini qof filimada jisho oo aktarisha Hindiya oo ilaa haddeer heerka ay ka gaadhay quruxda uu eebbe ku manaystay aktarad la soo dhinac istaagta amaba la tartanta laguma hayo liiska gudaha dalka Hindiya amaba jilayaasha filimada. Haddaba aktarkan Ajay Singh Deol maxaa uu ka dhaxlay aabihii? Sida aynu wada ognahay, Dharmendra waxa uu soo noqday xubin baarlamaan oo ka soo galay gobolkaasi Punjab magaalada Gurdaspur. Sidoo kale Hema Malini waxa ay soo noqotay iyaduna xubin baarlamaan ee xisbiga BJP isla gobolka Punjab Gurdaspur. Haddaba labadan aktar Deol waxa uu Ajay Singh Deol oo dhalay dhowr ciyaala waxa uu hadda gacanta ku hayaa aktar raba inuu jilaa filimada sidiisoo kalena uu u yeelo magac aad u weyn. Wiilkiisa oo soo hana qaaday ayaa waxa uu la jecel yahay isaga oo raba inuu filimkiisa ugu horeeyo wiilkiisa la dahiyo aabahan 63 jirka ah si uu wiilkiisa u helo fursado uu uga dhex muuqdo filimkaasi. Haddaba Ajay Singh Deol jilida filimada kaliya kuma ekaan ee waxa uu u xuub siibtay in uu ku biiro siyaasadda dalka Hindiya isaga oo raba inuu dhaxlo magaca aabihii Dharmendra iyo hooyadii Hema Malini ay ku lahaayeen siyaasadda gudaha Hindiya waliba xisbiga talada haya ee BJP. Xisbigan oo aabihii iyo hooyadiiba hore uga soo tirsanaayeen uguna soo guuleysteen inay ka mid noqdaan baarlamaanka dalkaasi iyaga oo ka soo galay xisbigaas gaar ahaan gobolka Punjab deegaanka Gurdaspur. Ma aanu aabihii waxa uu galay loolan dhanka ah siyaasadda isaga oo xooga saaray in uu noqdo xubin ka mid ah xisbiga BJP oo uu hogaamiyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi. Xilligii uu aabihii ku soo biiray xisbiga BJP uuna noqday xubin baarlamaan waxaa hogaamiye ka ahaan jiray ra'iisul wasaarihii hore Atal Bihari Vajpayee. Haddaba ma rumeeyey oo ma ka dhaweeyey Ajay Singh Deol ama Sunny Deol riyadii aabihii iyo hooyadii oo ma ku guuleystay midno baarlamaan oo ma raacay jeexeen ama beertii ay u faleen hooyadii iyo aabihii? Waxaanu oran karnaa Ajay Singh Deol waa uu raacay wadadii hooyadii iyo aabihii isaga oo ku dayasho mudan sameeyay kuna guuleystay. Aabihiis Dharmendra ayaa ku farxay guusha uu wiilkiisu gaaray bishii 3aad 2019. Bishii 3aad 2019 waxay u ahayd maalin farxadeed oo aad ugu weyn reer Dharmendra, qoyskan wada siyaasiyiinta iyo jilayaasha isugu jira. Uuna ka dhaweeyey isaga oo loolan Lok Sabha ee ka dhacday gudaha Punjab gobolka Gurdaspur 3 Maarch 2019 waxaana uu noqday xubin
buuxda oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi isaga oo ka soo galay xisbiga BJP ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Narendra Modi. Ajay Singh Diol waxa uu u istaagay siyaasadda 2015 in uu ku biiro xisbiga BJP, waxaana garab ku siiyay aabihii Dharmendra iyo hooyadii Hema Malini oo iyagoo nool ku arkaan wiilashooda mid ka mida siyaasadda oo bedela iyaga magacooda joogteeyana kursigii ay ku lahaayeen xisbiga BJP ee gudaha dalkaasi. Ajay Singh Diol oo ka soo jeeda qowmiyadda Singha ama loo yaqaan Singaha ee gobolka Punjab, waxaa lagu yaqaan aktarkani inuu yahay mid dhowrsoon oo aan afkiisa ka soo yeerin wax u dhima shucuubta Hindiya ama kala qaybiya. Marnaba laguma hayo meel ka dhac uu u geystay qowmiyadaha kale marka laga soo tago qowmiyadda Hinduuska ee Punjab ee uu isagu ka soo jeedo ee Singaha loo yaqaano ee Dasbur ee gudaha dalka Hindiya. Ajay Singh Diol oo loo yaqaan Sunny Deol waa xubin hadeer ka mida baarlamaanka dalka Hindiya kana tirsan xisbiga BJP garabka ra'iisul wasaare Narendra Modi. Waxa uu hadeer qorsheynayaa inuu filin la soo dhigo aktarkan 63 jirka ah wiilkiisa soo hana qaaday ee uu rabo inuu buuxiyo magacii uu ku lahaa Bollywoodka dhanka jilida filimada. Dhowaan waxa uu aktarkan Ajay Singh Diol ama Sunny Deol uu ku guda jiraa inuu la sameeyo filin sida ugu dhaqsaha badan wiilkiisa Karan Diol filinka Dil Ke Baas daqiiqad walba wadnaha agteeda. daawasho wacan fadlan subscribe yaan laga ilaawin channel waana mahadsantihiin daawasho.